munaasabadan oo ahayd mid loogu duceynayay Allaha u naxariistay Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo kamid ah shakhsiyaadkii doorka muhiimka ah ka qaatay in la qoro afka Soomaaliga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay dawladda, abwaano, macallimiin iyo marti sharaf kale ayaa lagu soo bandhigay taariikhda iyo suugaantii uu curiyay Allaha u naxariistay Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare. ugu horeyn waxaa taariikhda Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare iyo mashruuc ay ugu magac dareen ka sheekeeyay Maxamed Daahir Abuukar oo ka tirsan dhalinyarada golaha Kasmo. Kadare wuxuu ahaa ama ka tirsanaaba dadkii u soo halgamay inay maanta Soomaali ay yeelato far iyo maaragtay af midaysan. Kadare wuxuu ahaa abwaan, wuxuu ahaa farcuriye oo 1954 wuxuu curiyay ama uu curiyay far la oran jiray Kadariya dabcan oo taqaanaan wuxuu door weyn ku lahaa in maanta Soomaaliya ay yeelato far qoraal oo midaysan. haddaba ninka ciidankaas ah ee ummadda Soomaaliyeed taariikhda ku leh hal door weyn ah aniga tiimkii soo abaabulna waxaan la garanay inaynu hindisno ama ugu magac daray mashruuc la yiraahdo Kadare. mashruuca Kadare waa mashruuc aqooneed oo maaragtay horumarinaya afka taariikhda iyo maaragtay hidaha Soomaaliyeed si gaar ah doorka waxaan laga hirgelin doonaa magaalada Jowhar haddii la yiraahdo. Mas'uuliyiinta aqoon-yahanka iyo marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabada ka hadlay ayaa si wada jir ah u tilmaamay doorkii uu ku lahaa Kadare qoraalka afka Soomaaliga. waxaan rabi lahaa in la soo aruuriyo oo runtii ragga aqoon-yahaniinta dhiifoon oo dhalinyarada ah in la isku mashquuliyo sidii loo soo aruurin lahaa yacni ama shirb haday noqon lahayd ama haday geeraar noqon lahayd ama haday gabay noqon lahayd ama suugaan kale oo mahmaha u tuuray haday noqon lahayd in la soo aruuriyo la diiwaan geliyo noqoto marjac loo noqdo oo laga faa'iideysto suugaanta Soomaaliyeed. 18 jir wahay Professor Kadare markuu bilaabay inuu buug qoro oo af Soomaaliga far Soomaaliga inuu asiga qoro oo isu xilqaamo 18 sano ninka jira hadda joogo rajada noocaas ma leeyahay waa yartahay waxay ku tusayaan marka 52 markuu qoray 58 guddigii la magacaabay ee far Soomaaliga luqadda Soomaaliga in af Soomaali loo sameeyo u bedelo loo sameeyay ayuu kamid ahaa. marka loo fiiriyo af Soomaaliga wuxuu ahaa nin suugaanyahana, aqoon-yahana, taariikhyahana, marka warfaafinta naftigeedana qayb kaga jira. wariyaasha marka waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan afkaas iyo dhaqankaas soo banaa oo raggii badnaa ay nooga tageen oo Ustaad Kadare oo kamid ahaa Ilaahay u naxariistay. arrinta ku saabsan ee Dr. Kadare in wax laga qoro arrin laga gaabiyay eeday laakiin maalinkaanay bilaabatay dhalinyarada bilowdana hor u socdaan leenahay annankana qaybteena ka maamul ahaan iyo ka gobolka Banaadir ahaanba hiil iyo hoo aan idin la garab taaganahay. Umar Maxamed, Hirshabeelle TV, magaalada Muqdisho.